مدوّي حقنا تقدر تبنتان توسكا كوسو دوادا إن الله وإنا إليه راجعون intii dhimatay Allah u naxariisto halkan hadda aan taaganahay waa isgoyska Holwadaag ama isgoyska Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxaana ka dhacay shil gaari oo ay dad intaan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen hadda waxaa la sameynayaa in gawaaridii halkan ku burburtay iyo waxyaabihii kale ee burburka sababay iyo dhimashada in laga badbaadiyo dad marka daawadayaal waxaa idin soo gudbinayaa dhacdadan sida ay u dhacday hadda gobolka Banaadir iyo waaxaha gurmadka ayaa waxa ay sameynayaan in ay soo bixiyaan gaarigii meeshan galay ee weynaa ina tarayga iyo macna isjiidkiisa ahaa dad ayaa ku dhintay kuwa kalena waa ku dhaawacmay qayb ka mid ah meeshan korontada way ka maqan tahay oo waa mugdi laakiin magaalada qaybaheeda kale korontada way joogtaa dabcan maamulka degmada Holwadaag iyo waaxaha kale ee dawladda hoose ee gobolka Banaadir waxay isku dayayaan in ay soo bixiyaan gaarigii halkan galay ee shilka ahaa dad ayaa ku dhintay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada magaalada ayaa loo qaaday sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha maamulka degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir dhacdadan ayaa dhacday dhowr daqiiqo ka hor baabuurka shilka galay wuxuu ahaa baabuurta ina tarayada ah isjiidka iyo ramoolka markaas xambaarsan waxaana oo la sheegay in uu ku baxsaday ama uu ku fakaday kaalin shidaal oo halkan ku taala oo isgoyska Holwadaag waxyaabihii markaasi oo sababay shilkan iyo khasaaraha halkan ka dhashay ayaan goordhow idin soo gudbinaynaa telefishinka Universal page-ka Facebook-ga barta ayaa si toos ah nagala socotaan waxaan la hadli doonaa haddii ay noo suurta gasho gudoomiyaha degmada Holwadaag iyo saraakiisha kale ee degmadan ka howlgasha sidaas ayaad nagula soconaysaan ila socda daawadayaal dhinaca waa suuqii weynaa ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho isgoyska Holwadaag ayaa shilkan oo ka dhacay gaariga shilka galay ee isjiidka iyo ramoolkiisa xamuulka shixnadaha kala duwan sidina waa ka gaariga halka idin kaga muuqda ee kaalinka shidaalka lagu iibiyo ku dhaxdhacay marka ilaa ay hadda ay xaqiijiyay laba qof oo dhimasho ah iyo dhowr qof oo dhaawac daawadayaal telefishinka Universal ayaad wali nagala socotaan barta Facebook-ga ayaa si toos nagala socotaan gaarigan ina tarayga wuxuu doonayaa ama uu sameynayaa inuu ka soo bixiyo gaariga kale ee meesha ku dhaxdhacay halkaas ayaadna nagala socotaan hay'adihii amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa hadda iyo horeba u soo gaaray halkan oo soo gurmaday marka gaarigaas ayaa la doonayaa in meesha laga soo saaro oo shilka galay ee kaalinka shidaalka baabi'iyay ama dudumiyay waxaadna waayahay aad iyo aad weli waxaan ku guda jirnaa tabinteennii tooska ahayd barta Facebook-ga ee telefishinka Universal waxaana shilkan gaariga ah uu dhacay dhowr daqiiqo ka hor iyadoona markaas ay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo gaaray oo dadka markaasi markaa halkaa ku sugnaa soo gaarsiiyey waxaan markaa goordhow la hadli doonaa gudoomiyaha degmada Holwadaag ee maamulka gobolka Banaadir Mustafa Cali Khayre oo markaasi noo faahfaahin doona waxyaabaha shilka halkan markaa ka dhacay sababay dhimashada iyo dhaawaca waxaad nagala socotaan barta Facebook-ga ee telefishinka Universal dadweyne aad u kala duwan oo Soomaaliyeed oo magaalada qaybaheeda isaga soo baxay ayaa halkan yimid kuwaasi oo ka qayb qaadanayay sidii loogu gurman lahaa dadka baabuurtan shilka gashay markaas waxyeelada kala duwan ay soo gaartay waaxaha gurmadka degdega ayaa idin muuqanaya dawladda hoose ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo dadkii dhaawacmay iyo kuwii geerida ay soo gaartaba halkan ka qaaday qaarkood oo markaa badbaadiyay isbitaalada magaalada waxaa la sheegay in dhowr qof oo dhaawaca oo shilkan dhaawac ka soo gaaray loo qaaday
laba qof ayaa la ii xaqiijiyey ilaa hadda inay dhinteen oo shilkan gaari ee halkan isgoyska Howlwadaag magaalada Muqdisho ka dhacay ku dhow xil marka waxaad nagala socotaan barta Facebook ee telefishinka Universal hadda waxaa ila jooga gudoomiyaha degmada Howlwadaag Mustafa Khayre oo markaasi inoo sheegi doona waxyaabaha shilka oo ka dhashay iyo markaa khasaaraha jira mudane gudoomiye telefishinka Universal Cabdicasiis Okey ku soo dhawaaw barta Facebook ee TV-ga Universal bal shilkan gaari khasaaraha ka dhashay iyo inta hadda ogtihiin bismillaah alxamdulillah Universal aad u maasantiin sida u jeedaan salaada maqribka bacdi waxaa shil balaaran musiibo ah oo ku tilmaami karo ka dhacay meesha la yiraahdo isgoyska Howlwadaag ama wadada shirkadaha ama shinta geedka ka soo taqaano ee degmada Howlwadaag marka gaariga waxaa wada sida nolol sheegay yar kirishbooya waa soo waday waa soo fariin goostay aqoon darano way ka ahayd fariin goostay dadu meesha ku soo laayay isgoyskana arkaysa dadu ku dilay meeshana waa kaalin shidaal waana meel bar dadka ay ka raacaan gawaarida ay ka raacaan boosaja oo kala dhammaan mootooyinka waana runtii xilligaas xilli aad u zaxmad badan ay ahayd maxaa la yiraahdaa qof walba xaafadaheeda iyo shaqooyinkeeda markaas ka soo baxday nasiib darro gaariga waa soo fariin goostay wadihiina waa cili waa gaariga waxa kameen waa waxay noqotay marka in bajaajo meeshan yaallo oo qaarna shidaal ku shubanay qaarna sugay inay dad qaadaan in dadkii uu safar ka dhigay oo wixii dhamaa ee meesha wada mareen inta dhimata Allah u naxariisto tiro rasmi ma hayno laakiin sida hadda bahda caafimaadka inoo sheegayaan oo dhimaaday ilaa iyo in ka badan 10 qofood inoo sheegeen hatta waxaa ku jiro dad inta la qaaday jidka ama dhaxda ama isbitaalka qaarkood dhimashada ma 10 gaartay way ka sii badan tahay inay ka badan tahay aan u maleynaa ku dhawaad dhaawac sidoo kale waa jira wadihii laftirkiisii gaariga shilka geystay waday asiga laftirkiisa sida nolol sheeg waa garaab oo hadda waa dhaawac marka sidaas wax u dhacay waxaa hadda ku guuleysay meedkii ugu dambeeyay inaan ka soo saarno gudaha hoose kaalinka hoostiisa inaan ka soo saarno aan hadda ku guuleysay gaarigiina waa ka soo saarno meesha waa si ugu muuqata meeshuu yaallaa markii laga soo tago khasaaraha nafeed khasaaraha maaleed ujeedaan waxay ahayd meel casri kaalin shidaal oo qofka laxsada u lahaa oo muwaadin Soomaaliyeed u lahaa nasiib darro waa uu burburay dhammaan waxaad u nool ma laha sidoo kale mootooleydii iyo dadkii joogay meesha ayagana dhalinyaradii mootada ku shaqaysanaysay sidoo kale ayagana mootooyinkii way ku burbureen marka waxaan leenahay waa musiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa wixii nafa ee meesha ku baxay inuu sabar iyo iimaan ka siiyo eheladooda ayagiina naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo dadkii xoolahooda ku baaba'an waxaan leenahay insha Allah qadar khayr qabo oo ka baraka badan aan ilaahay ugu baryaynaa marka intaas waxaan aad u maasantahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Mustafa Khayre oo la hadlayay telefishinka Universal agaasimo Caray ayaa dhankiisa ila jooga agaasimaha howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir oo dhankiisa ka mid ahaa saraakiishii dawladda hoose ee caawa halkan gurmudka u timid agaasimo Caray inta aad adigana ku biirin karto khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee uu sababay shilka gaari ee ka dhacay isgoyska Howlwadaag dhaawaca dhimashada waxaan isleeyahay qaybaha ku shaqada leh aan laga weydiin doonaa haddii ilaahay laakiin waxaan uga faa'iidaysanaynaa qaybta annaga aanan ku shaqo lahayn macdaadkii aan keennay baabuurtii aan meesha ka soo bixinay waxaa suuro gashay meydkii meesha ku jiray inaan soo bixinay qaybteena gurmadkuna qaybtii horena dadkay qaadeen qaybtii dambena meydkii iyo dhaawicii ay qaadeen waana hawshii noola idmada inaan u taagnaano inna lillahi wa inna ilayna raaji'uun leenahay dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmada kuwa dhaawacmana Allah bogsiyo kuwa dhintana waxaan leenahay ilaahay aakhiradooda wanaagsan ha siiyo dadka hanti ahaan dhibka soo gaartana ilaahay ha u cawda caliyan leenahay tirooyinka saxda waxaa la weydiin doonaa dadka ku shaqada lahaa oo hadda dabda si fiican uma oga
laakiin gabar iyo wiil oo ugu dambeeya oo meesha ka soo bixinay ilaa 3 qofood oo 4 qofood ku dhow dhaawacan oo noola sheegay hadda laakiin tirakoobka saxda wuxuu ka imaan doonaa hay-adaha qaabilsan insha allah aadaan ugu mahadcelinaynaa Universal iyo tiimka kale oo dadaalka iyo taagnida iyo ay ugu dan lahaayeen shacabka inay la wadaagaan xanuunka aadaan ugu mahadcelinaynaa aad u mahadsan yahay Cabdullaahi Muuse Caray agaasimaha guud ee howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir oo la hadlayay telefishinka Universal ayuu kaasi ahaa dabcan daawadayaal shilka halkan ayuu ku burburay gaarigii markaasi isgoyska Howlwadaag shilka ku galay halkan waa goob shidaal oo baabuurta shidaalka ka shubtaan oo goob shidaal ahayd oo isgoyska Howlwadaag ku taalay sidan ayuu shilka u dhacay gaariga shilka galay waa gaariga inatareyga ah ramoolka wata dad badan ayuuna dhaawac iyo dhimasho ka soo gaaray shilkan oo gudoomiyuhu Howlwadaag iyo xaqiijiyay ilaa 10 qof in ay geeriyoodeen tire intaa ka badanna dhaawacyo ay soo gaareen halkan markii uu shilka ka dhacayay waxa ay ahayd goob ganacsi oo bajaajyo iyo baabuur kaleenta ay shidaalka ka iibsanayeen oo ay joogeen isgoyskuna wuxuu ahaa xilli fiid ah oo aad u mashquul badan wuxuuna isgoyskan ku yaalaa isgoyskii bakaaraha ee magaalada Muqdisho weeye isla markaana markaasi aad mashquul u ahaa mudane magacaaga ishak waayahay dabcan hadda waxaa inoo suur geli doonta inaan wareysanno milkiilihii goobta shidaalka khasaaraha ugu badan ee burburka hantiyadeed uu soo gaaray oo goobtan isgoyska Howlwadaag ah ayaa inoo suur geli doonta insha Allah goordhow inaan wareysi la yeelano si aan u ogaano khasaaraha iyo markaasi burburka hantiyadeed waayahay Axmed Qaasin oo ah milkiilaha goobta shidaalka isgoyska Howlwadaag burburka uu soo gaaray ayaa hadda ayaan wareysanaynaa telefishinka Universal ayuuna si toos ah ula hadlayaa Axmed marka hore waan kaaga tacsiideynaynaa khasaaraha kala duwan ee goobtaada soo gaaray iyo ummadda Soomaaliyeed ee markaasi dhimashada iyo dhaawaca shilkan gaaray uu ka soo gaaray bal Axmed Qaasin waxaad inooga warantaa sida gaarigan oo shilka u galay iyo khasaaraha dhankaaga ku soo gaaray goobta shidaalka milkiilaha ka tahay bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anti waa la helaa laakiin lama helo meel dad badan ku baaba'ay oo la fiirin karin meedkooda awrkaana dhinacaas Howlwadaag oo ka yimid dhinaca hormuud ka yimid waana soo baray goostay alxamdulillah meesha waxa ka dhacay dib kuma qarsoono khasaare naf iyo maal waa gaareen ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatana Allah u naxariisto hantidii iyo khasaarada meesha soo gaartayna badalka hadda waan ilaahay ka baryaynaa waayahay sidee gaarigan marka ku soo fariin goostay ama breega u soo goostay oo halkan ku soo gaaray hore ma u dhacday dhacdadan oo kale weli midaan aragna ma ahan baabuurka waxaa la sheegay sida bahalka inuu dhanka barakaad uu ka yimid hormuud xaggeeda inuu ka yimid markaasina uu waday nin aan darawal ahayn oo kirishbay uu ahaa sidaasay maqaadirtii musiibada ku dhacday waayahay hadda maxaa loo baahan yahay maadaama gaarigii oo shilka halkaa ku burburay khasaare kala duwan halkan uu ka jiro maxay tahay waxa ugu muhiimsan ee hadda loo baahan yahay waxa ugu muhiimsan waxay ahayd gurmad inaan helno gurmadna gobolka noo soo diray gudoomiyaha degmada waa yimid si gurmada meedkii wixii dhan waa la baxshay dhaawacina waa la qaaday waxa meesha hadda ku haray sida ujeedinba baabuurka shilka ku dhacay iyo meesha shilka ka dhacay hadduu ilaahay warar cawaalo waa baristaa waaga hadduu bariyaan kulay wixii jiro iyo traffic iyo police iyo wixii hooshas quseeyo aan kala xiriirina waana khasaarihii baabuurka cidii lahaydna waa la bartay cidda khasaarada ku dhacdana waa la bartay meedadka cidii lahaa kulli waxaa lagu ballansayay maamulka degmada soo cusub imaanaa aad u mahadsan yahay Axmed Qaasin oo ah milkiilaha goobtan shilka oo ka dhacay ee isgoyska Howlwadaag ee kaalinka shidaalka lagu iibiyo ayuu kaasi ahaa oo TV-ga Universal warbixin ka siinayay sida ay markaasi khasaaraha iyo waxyaabaha halkan ay ugu jiraan dabcan daawadayaal waxaad nagala socotaan barta Facebook-ga ee telefishinka Universal muuqaalada idin muuqda waa burburkii uu sababay shilka gaari ee halkan ka dhacay halkan oo kale waxaa idinkaga muuqanaysaa gaadiid yar oo bajaaj ah oo markaa shilka burbur uu ka soo gaaray goobtii shilka uu ka dhacayna waa sidan gaarigan wejiga ka burbursan ama fooqa hore ka burburayna waa gaarigii shilka galay
halkan waxaa la ii sheegay in ay ku geeriyoodeen dad Soomaaliyeed oo tirada nambarkooda laygugu sheegay 10 qof intaa ka badanna dhaawacyo ay jiraan dabcan dadka halkan markaasi joogay waxay inoo xaqiijiyeen in markaa shilka gaari oo dhacay baabuurkana uu ahaa mid bareega ama fariinka soo goostay oo markaasi sidaa shilka uu ku dhacay telefishinka Universal ayaa nagala socotaan barta Facebooka ayaana si toos ah nagala hadlaynaa waxaadna markaan daawadayaal aad si toos ah nagu daawanaysaan magaalada Muqdisho isgoyska Holwadaag shilka gaari ee caawa halkan ka dhacay iyo khasaaraha uu sababay ayaana idiin soo gudbinay wixii warar ay ku soo kordha iyo faahfaahinno kaleba waxaad kala socon doontaan telefishinka Universal iyo barta Facebooka.